بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن إذا الكيمبا هالكني ومجن ميديا أنونا وحنا هاي عبد القادر محمد مسلمين تا دلك إثيوبيا يسدوا كلا دولة رئيس الوزراء أبي أحمد أي كلام مريسا حالة ضد ماشي وجو حميد يدونا دجانا دا أحمر دا يسدوا كلا كنت كريجا كجيران عدد سياب اللارن أو دولة يا شعب ككريستان كأيكوهيان دتك مسلمين تا هالكاس كنول wararkii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya guud ahaantiisa uu eelaamiyay kulan degdeg ah oo markaas ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka Itoobiya kaas oo ay uga waransanayaan hadallo dhawaan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale maamulada ka jira deegaanada Axmaarada iyo Kantikreyga dhawaanahanba gudaha deegaanka Tigrayga iyo kan Axmaarada waxa ka socotay in ardada muslimiinta ah ee gabdhaha ee markaasi xijaaban ama niqaaban loo diido inay gudaha u galaan iskuulada ay wax ka bartaan dhinaca kalena waxa lagu soo waramayaa in wasaaradda waxbarashada ee Itoobiya ay manhajka cusub ee dalkaasi ay ku soo kordhisay in ardada ay qasab ku tahay inay bartaan luqadda lagu magacaabo Gees taasoo la tilmaamo inay salka ku hayso arrimo diinta Kiristaanka la xiriirta muran xoogan oo arrimahaas la xiriira ayaa guud ahaanba dalka Itoobiya ka bilowday si gaar ah deegaanada iyo dadka muslimiinta ee dalkaasi ku nool warbixinadii ugu dambeysay ee xaaladahaas ayaan saaxiibayaal barnaamijka idin kula wadaagi doonaa sidoo kale inta barnaamijka hawada ku jira waxaad ku maqli doontaan taliska dhexe ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa maanta waxa ay soo saareen war kale oo la yaab leh taasi oo muujinaysa in dalka Itoobiya uu dagaal ku qaadi doono dalka Eritrea waxaana mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada militariga ee dalka Itoobiya uu mar kale sheegay inay ciidamadu u diyaarsan yihiin dagaal kasta oo markaas dalka Itoobiya ay galaan waxaana tababaro kala gadsan oo ciidamada militariga dalkaasi loo qabtay lagu wargeliyay inay u diyaar garoobaan dagaalo markaasi lama filaan ah oo dawladda dalka Itoobiya ay qaado mid ka mid ah talisada ama saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada militariga oo lagu magacaabo Zaydu Bele ayaa waxa uu si rasmi ah markaan u sheegay inay ciidamada Itoobiya u diyaarsan yihiin inay qaadaan dagaalo nafhurnimo ah oo gudaha dalka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa ay ku xoojinayaan madax banaanida dalka Itoobiya sida uu hadalka u dhigay akhbaaraadkaas ayaan saaxiibayaal barnaamijka intuu hawada idin ku jiro aad ku maqli doontaan soo dhawaada waxaan ahay Cabdulqaadir Maxamed Magan Media ayaad naga daawanaysaan meel kasto aad naga daawanayso waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka ee Magan Media halkaas oo si maalinle ah warbixino kala gadsan aan idin kula wadaagno sidoo kale barta Facebook aan ku leenahay soo follow gare halkaas oo iyadana akhbaaraadka aan idin kula wadaagno aynu ku bilownay gudaha dalka Itoobiya kacdoon u dhaxeeya dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale muslimiinta gobol dalkaas ku nool ayaa marba markaasi dambaysa cirka isku shareeraya iyadoo gobolada Tigrayga iyo sidoo kale kan Axmaaradu ay yihiin meelaha ugu daran ee kacdoonada diinta Islaamka iyo dawladdu ay iskaga hor imaanayaan markaasi ay ka socdaan golaha arrimaha islaamka ee deegaanka Axmaarada ayaa cabasho ka muujiyay siyaasadda deegaankaasi ee gaar ahaan wasaaradda waxbarashada taasoo la sheegay in luqadda Geeska lagu magacaabo ay dawladdu manhajkeeda cusub ay ku soo dartay iyadoona wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Itoobiya Birhanu Naga uu wax la yaab leh ku tilmaamay in ardaydu ay xirtaan gabdhaha muslimaadka si gaar ah ay ku soo labistaan xijaabka iyo sidoo kale niqaabka ay markaas fasalada ku tagaan waxa uuna si cad u sheegay in ardada xiran niqaabka iyo xijaabku ay amniga guud ee waxbarashada iyo sidoo kale kan Itoobiyaba ay markaasi ku yihiin khatar sida uu hadalka u dhigay arintaasi ayaa waxa ka carooday hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka Itoobiya iyo si guudba shacabka islaamka ah ee dalkaas ku nool waxayna Abiy Ahmed ku wargeliyeen in ninkan waxbarashada haystay uu ku xadgudbay qiyamka iyo sidoo kale sharafka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta arintan ayaa sidoo kale waxay deegaanka Axmaarada iyo gobolka Tigrayga ka samaysay markaas iska horimaad ay dadku markaas mudaharado waaweyn oo arintaas looga soo jeedo ay ku qabanayaan deegaanka Axmaarada luqadda Geeska ayaa la tilmaamay in manhajka cusub ee dawladdu ay halkaas ku dartay luqadan Geeska loo yaqaano waxa isticmaala dadka haysta diinta Kiristaanka ee loo yaqaan Orthodoxka oo gudaha dalka Itoobiya caan ka ah sidoo kalena dalka Eritrea la tilmaamo in Kiristaanka degan ay isticmaalaan ardada
wax ka barata dugsiyada kala gedsan ee gobolada Axmaarada iyo kan Tigreega ayaana la sheegay in lagu qasbo inay si qasab luuqadaasi u bartaan arintan ayayna hogaamiyaasha muslimiintu markaasi cabasho aad u ballaaran ay markaasi ka soo saareen dhinaca kale golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya ayaa war la yaab leh isaguna arintaasi ka soo saaray waxayna digniin culus u direen dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale tan markaasi gobolada ama deegaanada kala gedsan ee dalkaasi Itoobiya ee muslimiinta dhibaateynaya dhawaan ayay ahayd markii magaalada Aksum ardada muslimiinta ku nool si gaar ah kuwa gabdhaha loo diiday inay iskuulada la yimaadaan xijaabka hadii ay doonayaan inay wax bartaanna ay gebi ahaanba ka soo tagaan arintaas oo hay'adaha xuquuqda bini'aadamka u dooda golaha arrimaha islaamka muslimiinta Itoobiya iyo sidoo kale dadyoga kala gedsan ee xuquuqda dadka u doodaba ay ka soo horjeesteen hadda xaaladdu meel cakiran ayay maraysaa waxaana muuqata in marba mar ka sii dambaysa ay xaaladdu ka sii darayso cirkana ay isku sii shareerayso iyadoo ay markaasi muuqanayso sida arintan loogu kala aragto duwan yahay golaha guud ee arrimaha islaamka ee Itoobiya iyo sidoo kale golayaasha gobolada dalkaasi Itoobiya ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi waxa ay ka dalbadeen inay ka laabato siyaasadeeda ku saabsan labiska islaamka golaha sare ee arrimaha islaamka waxa ay soo saareen bayaan ay ku cambaareenayaan awaamiir ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dalka Itoobiya oo ay ku sheegtay inay keentay ama inay taasi ay keentay in ardayda muslimiinta laga reebo waxbarashada sabab la xiriira labiskooda diimeed golaha ayaa ku eedeeyay wasaaradda Itoobiya ee waxbarashada faragelin inay ku hayso arrimaha diinta iyo ku xadgudubta xuquuqda dastuuriga ah ee dadka islaamku Itoobiya ku dhaxleeyeen madaxweynaha guud ee golaha arrimaha islaamka ee dalka Itoobiya Sheekh Xaaji Ibrahim Tufa ayaa sheegay in xadgudubyada lagu hayo ardayda gabdhaha ee muslimiinta ay tahay in si degdeg ah loo joojiyo isagoo ku eedeeyay xayiraadda la saaray labiska gabdhaha muslimaadka inay markaasi tahay arin ay dawladda Itoobiya ay xuquuqda dastuuriga ay ku jabinayso waxa uu sidoo kale tilmaamay inay jiraan mamnuucida niqaamka taasoo uu ku tilmaamay inay tahay olole ula kac ah oo lagu takoorayo ardayda muslimiinta ee gudaha dalka Itoobiya ku sugan waxa uu intaas ku daray in qaabka ay wasaaraddu u wajahday arintan oo u ogolaanaysa xijaabka halka ay niqaamka mamnuucayso waxa uu leeyahay xijaabka iyo niqaamka oo ay dawladdu kala saartay waa isku mid waxayna arintaasi keenaysaa faragelin diimeed waxayna taa ka dhalan kartaa ayuu yiri in isku dhaca qowmiyaduhu mar kale Itoobiya uu uga bilowdo dib golaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la dhiso guddi ka kooban 17 xubnood oo baari doona xadgudubyada soo noqnoqday isla markaasina la tilmaamay in xal waara ay ka soo shaqeeyaan sidii dawladda iyo golaha arrimaha islaamka arrimahaas ay wada shaqeyn lahaayeen markii uu soo baxay bayaanka golaha arrimaha islaamka ee qaranka golayaasha arrimaha islaamka ee gobolada ayaa iyaguna soo saaray warar isku dubaridan oo ay ku muujinayaan garab istaaga golaha arrimaha islaamka ee qaranka Itoobiya kaasoo ay ku cambaareenayaan waxayna tilmaameen in siyaasado takoor ah uu ku kacayo wasiirka waxbarashada ee dalka Itoobiya oo ay ku jiraan xayiraadaha ku saabsan labiska iyo markaasi casharo la sheegay in luuqada giiska khasab looga dhigayo ardayda iyadoo aan wax wada tashi laga sameeynin arintaasi gudaha dalka Itoobiya golayaasha ku yaala deegaanada Axmaarada koonfurta Itoobiya ayo sidoo kale maamulka Addis Ababa ayaana waxa ay tilmaameen in iyaguna baaq arintaasi ku saabsan ay soo saari doonaan si guudba Itoobiya waxa ka soconaya xaalad isku dhex qasan oo markaas wasaaradda waxbarashadu ay dalka gelisay sida la tilmaamay waxaana la sheegayaa in xaaladdu marba mar ka sii dambaysa ay ka sii darayso gabdhaha muslimaadka ee iskuulada aada si gaar ah gobolka Tigreega ayaa horay loogu diiday inay xijaabtaan oo ay xijaabka la soo galaan taas ayaana keentay in kumanaan muslimiin ah oo markaas iskuulada deegaanka Tigreega dhiganayay ay joojiyaan taas oo ugu dambeyn keentay in maxkamadda sare ee magaalada Askum ay arintaasi ka soo horjeesatay isla wararka Itoobiya ayaan saaxiibayaal ku sii soconaynaaye ciidamada dalka Itoobiya oo muddooyinkii u dambeysayba ku milmaya siyaasadda guud ee dalkaasi Itoobiya ayaa mar kale waxa ay soo saareen sidoo kalena ay tilmaameen in ciidamada militariga ay diyaar u yihiin
inay qaadaan weeraro degdeg ah oo markaasi aan la sii qorsheynin ciidamada militariga hogaankoodu waxa ay tilmaameen inay doonayaan markan inay dowladda Abiy Ahmed ku wargeliyaan inay ciidamadu diyaarsan yihiin tababaradoodii ugu dambeeyayna ay qaateen dagaalada gudaha dalka Itoobiya ka socdana inay wax ka qabtaan ay u diyaarsan yihiin sidoo kalena ay u diyaarsan yihiin in markaasi dalalka dibadda ay weeraro ku qaadaan nin lagu magacaabo General Zawdu Belay oo ah taliyaha xarunta dhexe ee ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa sheegay inay ku jiraan heer diyaar garow oo markaasi ugu dambeeyay kaas oo tilmaamay in lagu ilaalinayo madax banaanida Itoobiya laguna hortagayo dagaal ka dhaca gudaha dalka Itoobiya isla markaasina hadii uu dhaco lagu soo afjarayo awood sareysa oo markaasi ciidamada militarigu ay leeyihiin sida uu hadalka u dhigay General Zawdu Bakale waxa uu sidoo kale sheegay in ciidanka lagu tababaray inay ka shaqeeyaan sidii guud ahaanba dalka Itoobiya ay nabad markaasi ugu soo dabaali lahaayeen isla markaasina dalka ay xaaladda uu hadda ku jiro uga bixin lahaayeen General Zawdu Belay oo sheegay inuu maalin iyo habeen u dagaalami doono dalka Itoobiya sababtoo ah buu yiri wadan aan difaacno ayaan leenahay iyo sidoo kale waajibaadna loo igmaday ayaa waxa uu arintani ka sheegay in taliska guud ee ciidamada militarigu markaasi ay ka shaqeynayaan sidii ciidamada Itoobiya ay weerar kasta oo dalka Itoobiya lagu soo qaado iyo mid ay iyagu qaadaanba ay markaasi ugu diyaar gareysan yihiin taliyaha qaybta dhexe ee taliska ciidamada militariga waxa uu sidoo kale sheegay inuu meel gabagaba marayo sidoo kalena ciidamada militariga loo diyaariyay dagaalka ka hortagga ah kaasoo loo yaqaano anti shocking iyo dagaalka joogtada ah ee markaasi dowladda Itoobiya ay qaadi karto waxa kale oo uu sheegay in joojadu kale ee tababarka mudooyinka ugu dambeysay dalkaasi Itoobiya ka socda uu yahay sidii guud ahaanba jabhadaha dalka Itoobiya ka dhaqdhaqaaqa ay dowladdu u soo afjari lahayd waxaana la tilmaamay in ciidamada militariga ee dalka Itoobiya lagu amray inay u diyaar garoobaan dagaalo markaasi aan la sii sheegin ama aan la sii shaacinin oo ay dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed doonayso inay qaado sida ay tilmaameen Abiy Ahmed ayaa dhawaan sheegay inuu ciidamada militariga ay dalkiisa ku wargeliyay inay gabi ahaanba soo afjaraan dagaalada iyo jabhadaha markaasi gudaha dalka Itoobiya ka dhaqdhaqaaqa jabhada Faano oo gobolka Axmaarada ka dhaqdhaqaaqda ayaa waxa la tilmaamay inay jab xoogan gaarsiisay ciidamada dawladda gobollo iyo degmooyin gobolkaas ka tirsanna ay ka qabsatay sida la tilmaamay dhinaca kale wararka aan helayno waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dawladdu ay si xoogan ugu jiraan sidii ay markaasi wax uga qaban lahaayeen jabhada Oromada ee Ola oo iyaduna gobolkaasi Oromada isku sii ballaarinaysa dhawaan waxay ahayd dowladda Itoobiya ay si rasmi ah u sheegtay baaqna ay u dirtay in ciidamada militariga laga daayo dhibaatooyinka arrimaha gudaha maadaama ay ku howlan yihiin sida ciidamada militariga hogaankoodu ay sheegeen inay qabtaan mid ka mid ah dekedaha dalka Eritrea uu leeyahay arrintaas oo tilmaantay in dowladda Abiy Ahmed ay si buuxda markaasi ugu diyaar garowday inay dagaal la gasho Eritrea hadda hadalkan ka soo yeeray ninka taliska ciidamada militariga qaybta dhexe ama xafiiskaba jooga ah in ciidamadu ay si buuxda markaan u diyaar garoobeen diyaarna ay u yihiin dagaal kasta oo gudaha iyo dibadda ah ayaa mar kale waxa uu keenayaa shakiga ah in Itoobiya ay markaan u diyaarsan tahay inay mar kale dagaal ku qaado ee dalka Eritrea iyo sidoo kale dekada Asab oo ay markaasi doonayso inay qabsato Abiy Ahmedna mudooyinka u dambeysaba uu ka shaqeynayay sidoo arintaasi meel uga gaari lahaa saaxiibeel intaas ayaan qodobkana ku soo gabagabeynaya waad ku mahadsantiin la socodka barnaamijyadeena anigoo Cabdulqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinayay bartan Magan Media isha ku hay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka iyo geeska Afrika iyo asqaas arrimaha Itoobiya ayaan halkan saaxiibeel kula wadaagi doonaa nagu soo biir oo barteena Magan Media YouTube ka subscribe ku samee muuqaalkan la garay sidoo kalena la sii wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro inta aan kulmi doono muuqaalkeena xiga sidaas iyo nabadgelyo